إنا لله وإنا إليه راجعون وحاكود وتكجري وذي درك كينيا مقالة نيروبي مدحوينه أن أفراد الصومالية علي مهدي محمد إلهي سبحانه وتعالى وهو الدين الله سبحانه وتعالى قد كلها ونوريه إلهي قد كواسيه لما وحو تحسين يا ومد الصومالية ملك ستيجوغان وحان لا يهي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل النفس ضائقة الموت وحان سيجارة وتحسين يا قويسكي يا عرورتي يا مرودي وكتري مرحومك وحان لا يهي إلهي سبحانه وتعالى عول خير قبا إلهي ينكو بدلو إلهي سبحانه وتعالى سمري ما هنا قصيو لما نمضوا الصومالي ضربوا كقريودي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت وحي جوكتاب بدبادين قرد صوماليين وحي جوكتاب بدبادين أمد صوماليين ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الله naxariistay wax yar un ka hor magaalada Nairobi ku geeriyooday madaxweynihii afraad ee Soomaaliya Ali Mahdi Maxamed كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون علي مهدي محمد waxa uu ku dhashay tuulada Cadawul ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sanadkii 1938 waxaana uu soo noqday madaxweynaha Soomaaliya kadib burburkii dawladda Maxamed Siyaad Barre sanadka markuu ahaa 1991 ayaa Ali Mahdi loo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya muddo gaaban kadib waxa bilowday dagaal sokeeye oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay isaga hor yimaadeen qaybo raacsan محمد فارح عيديد كاسو ديدنا مدحويننimada علي مهدي iyo kuwa difaaciyay علي مهدي الله uu naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu xilka madaxweynenimada ku wareejiyay shirkii ka dhacay magaalada Carta ee wadanka Djibouti sanadka markuu ahaa 2000 علي مهدي sanadkii 2007 waxa uu abaabulay shir nabadeed oo beelaha Soomaaliyeed la isugu keenayo waxa jira waxyaabo badan oo wanaagsan oo uu qabtay shacabka Soomaaliyeed lamana soo koobi karo maanta oo ay taariikhdu ku beegnayd 10ka bisha saddexaad sanadka 2021 ayuu ku dhintay magaalada Nairobi isagoo ku geeriyooday da'da 83 jirka